صدى دان عافي ما لهرين عرور تاقر لبرين مياعي لقطعا كالكالي عاويو شغالها دي عبيرا عتيبو كي ويقالينو وجمع اللبوعي البحي بلا اسماء وجمع اللوعي البحي بلا اسماء عدالة يشرقا عدكي وليها لبري ولقى برن بلا اسماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ka hadli doonaa maanta formulooyinka chapterka koowaad grade 2 alif waxaan ka hadli doonaa formulooyinka ku dhex jira chapterkaas inta ay yihiin iyo sida loo isticmaalo mid walba magaciisa iyo halbeega lagu cabiro intaas ayaan ka hadli doonaa maanta waxaan ku bilaabaynaa marka qaacidooyinka waxa ugu horeeya qaacidada periodka ama kalka period ama kalka formaliisa waa time taken waqtiga ay ku qaadato oo loo qaybiyo number of oscillation inta mar ee shaygan walhashada sameeyay ayaa loo qaybinayaa periodka waxa lagu helaa formulahan time taken oo loo qaybiyo number of oscillations formula kale ayaa jiro oo ah periodka waxa lagu heli karaa 1 over f hal loo qaybiyo frequency-ga waxaa jira formulooyin kale waxay yihiin 2 by periodka waxa lagu heli karaa periodka formula kale ee lagu heli karo wuxuu yahay 2 by radical m loo qaybiyo k formulana wuu jira periodka formulayaashaas ayaa lagu heli karaa formula ka ayaa jiro period waxa lagu heli karaa 2 by oo loo qaybiyo omega 2 by oo loo qaybiyo omega formulahana wuu jiraa 2 by oo loo qaybiyo omega marka formulayaasha periodka ku jira chapterkan waxay kala yihiin time taken oo loo qaybiyo number of oscillation periodka waxa kale lagu heli karaa 1 over f hal loo qaybiyo frequency-ga formula kale lagu heli karo wuxuu yahay periodka ama t waxa lagu helaa 2 by radical m loo qaybiyo k formula kale oo afraad ayaa jiro ah
periodka waxaa lagu heli karaa 2 by oo loo qaybiyo omega. Sidoo kale waxaa jira frequency-ga formulayaashiisa. Frequency ama F waxaa lagu heli karaa number of oscillation, tirada walhashada, number of oscillation, tirada shaygan walhashada uu sameeyey, ama inta jeer ee shaygan walhashada sameeyey. waxaa loo qaybinayaa time taken, waqtiga ay qaadanayso. Time taken, waqtiga ay ku qaadanayso. Formula kale ayaa jiro. F waxaa lagu heli karaa 1/T. F ama frequency wuxuu la mid yahay 1/T, hal loo qaybiyo periodka. Formula kale ayaa jiro asagana saddexaad oo ah frequency waxaa lagu heli karaa 1/2 by radical k loo qaybiyo m. K loo qaybiyo m. marka formula afraadna wuu leeyahay. F waxay la mid tahay omega oo loo qaybiyo 2 by. waaya marka fiiriso periodka iyo frequency-ga labadooda waxay isku yihiin reciprocal. waxaa loola jeedaa asagoo la gediyey. hadda kan periodka time taken oo loo qaybiyo number of oscillation haddii la rogo number of oscillation aan kor marayo. marka periodka waa reciprocalka F. maxaa loola jeedaa asagoo la qalibay ama la gediyey. periodka waxaa lagu helaa 1/F. F-na waxaa lagu helaa 1/T. sidoo kale periodka waxaa lagu helaa 2 by radical m loo qaybiyo k. frequency-ga asagana waxaa lagu helaa 1/2 by radical k over m. waaya periodka waxaa lagu helaa 2 by divided by omega. F-na waxaa lagu helaa omega loo qaybiyo 2 by. marka kan oo la gediyey iyo kan cagsi isku yihiin markaas. waayahay sidoo kale xarfaan meesha ku jira maxay yihiin? F waxay u taagan tahay frequency-ga ayay u taagan tahay. F waxay u taagan tahay frequency-ga. F maxay u taagan tahay frequency. SI unit-keedana muxuu yahay? SI unit-keedana wuxuu yahay hertz. SI unit waa hertz. T waxay u taagan tahay period. T waxay u taagan tahay period. SI unit-keeda muxuu yahay? second. SI unit-keeda wuxuu yahay second. waxyaabaha kaloo meesha ku jira waxaa ka mid ah m waxay u taagan tahay mass. M wuxuu u taagan yahay mass. SI unit-kiisa waa kilogram. Unitka lagu cabiro halbeega lagu cabiro waa kilogram. waxaa kaloo meesha ku jira k oo u taagan spring constant. shay joogto ah oo moolada ay leedahay. or force constant. magacaasna wuu leeyahay force constant. xarfaha kale ee meesha ku jira waxaa ka mid ah by waxay la mid tahay 3.14 ama waxaad dhigi kartaa 22 divided by 7 markay tahay fractional. kana markuu yahay decimal. markuu jajab toban la yahay waa 3.14. markuu yahay fraction ahaana waa 22 divided by 7. waxyaabaha kale ee meesha ku jira waxaa ka mid ah omega. ereygaasi muxuu yahay? omega wuxuu u taagan yahay angular
frequency angular frequency ayuu u taagan yahay angular frequency ayuu u taagan yahay waxa loo akhriyaa omega ayaa loo akhriyaa SI unitkeeda sida loo akhriyo waxa loo akhriyaa omega ayaa loo akhriyaa angular frequency ayuu u taagan yahay unitkeeda SI unit waa rad per second ayaa unit u ah SI unitkiisana waa rad per second xarfaha ku jira meeshaan oo dhan xarfaha ku jira halkaas ay noogu qoran yihiin waxa kaloo noogu qoran xarafkan F muxuu u taagan yahay SI unitkiisa muxuu yahay period xarafkan T-dan waxay u taagan tahay period SI unitkeeda second M-tan waxay u taagan tahay mass SI unitkeeda waa kilogram K waxay u taagan tahay spring constant or ama magaca kale loo yaqaan force constant K spring constant ama force constant SI unit ay leedahay iyada lafteeda waa newton per meter SI unitkeeda waa kan newton per meter inta maxaa yaala by xarafkan by wuxuu u taagan yahay number constant oo ah 3.14 oo 22/7 xarafka kale meesha ku jira waxa waa omega ayaa loo akhriyaa laakiin muxuu u taagan yahay angular frequency rakaadka xagasha waxaana loo akhriyaa read omega loo akhriyaa SI unitkeedana waa rad per second waayahay hadda waxaan u gudbaynaa formulayaasha omega ay leedahay hadda waxaan sheegnay periodka iyo frequency-ga formulayaasha ay leeyihiin okay hadda waxaan u gudbaynaa formulayaasha ay leedahay omega ama angular frequency-ga formulayaasheedu waxaa ka mid ah 2/f ayaa ka mid ah 2/f formulayaasha kale ay leedahay waxaa ka mid ah omega inay la mid tahay k loo qaybiyo m oo ku jira radical okay omega waxa kale la mid tahay formula kale leedahay oo ah omega waxa lagu helaa 2/2 oo loo qaybiyo t 2/2 oo loo qaybiyo t 2/2 oo loo qaybiyo t formulayaashan waxaa iska leh omega ama angular frequency SI unitkeedana waan sheegnay waa SI unitkeeda waa rad per second waayo formulayaashaas waxaa kaloo jira formulooyin kale oo badan waxaa ka mid ah force-ga k formulayaasha ay leedahay force-ga ka mid ah k waxay la mid tahay f loo qaybiyo x k formula kalena way leedahay waxay la mid tahay mg mass lagu dhuftay gravitation oo loo qaybiyo x formulana wuu jiraa k waxay la mid tahay mg oo loo qaybiyo x formulayaal kale oo ay leedahayna way jiraan marka g-dan maxay u taagan tahay g-daasi waa number fixed waa 9.8 meter per second square or 10 haddii la soo gaabiyo 10 meter per second square haddii la rabana unitkan saan loo qoray waxaa loo qori karaa si kale loo qori karaa waxaa la dhihi karaa g
waxay la mid tahay 9.8 newton per kilogram or ama kan sida si kale loo qori karo waxaa la karaa 10 newton per kilogram sana waa loo qoraa unit kastaan waa loo qori karaa meter per second square na waa loo qori karaa waa isku mid sababtoo ah halkii newton wuxuu u dhigmaa kilogram meter per second square kilogram meter per second square ayuu u dhigmaa m waa soo sheegnaa daay laakiin f tan sidaan u qoran maxay u taagan tahay force ay u taagan tahay f tan waxay u taagan tahay force quwadda shayga unitka lagu cabirana waa newton unitka lagu cabirana waa newton marka la qoraayo n ayaa la qortaa forcega marka la qoraayo xarafkiisa waa f oo capital SI unitkiisa waa newton marka mid walba waxaan ka soo hadalnay mid walba wuxuu leeyahay afar shay ayaan ka soo hadalnay waxaan ka soo hadalnay koo definitionada qeexitaanada qeexitaano ayaan ka soo hadalnay labo waxaan ka hadalnay formulas qaacidooyinka in la yaqaano sababtoo qaacidada waa wixii lagu shaqayn lahaa inaa kor ka haysid waxyaabaha kale maxaa ka mid ah xarfana waan aragnay xarfana inaad taqaano shay walba xarafka u taagan inaad taqaano kan afraad wuxuu yahay qofka inuu yaqaano SI unit halbeegiisa caalamiga SI unit halbeegiisa caalamiga ah inaad taqaano afartaas shay waa muhiim waxaan ka hadalnay definitionada formula waan ka hadalnay asagana qaacidooyin symbols xarfo u taagan iyo SI unit halbeega shaygaasi uu leeyahay intaas ayaan ka hadalnay waayahay